بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال waxaad ku soo dhawaataan waraysi aanu khadka telefishinka Soomaali Cable ee magaalada Dhuusamareeb kula yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Central State Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Sheekh Maxamed Shaakir waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb. waxaanan weydiiyay maadaama magaalada Muqdisho uu ka soconayo shirkii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo international community-ga ee looga hadlayay markaasi higsiga sanada 2016 qaabkii doorashooyinka uga dhici lahaayeen dalka Soomaaliya sidee bay u arkaan shirkaasi ka furmay magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay waad mahadsantahay xasan cadde waxaan u aragnaa inuu sanayn mid Soomaaliya higsigeeda ama badbaadadeeda looga hadlayo laakiin waxaan isleenahay Soomaaliya kala harkeeda ay kala harto baa looga hadlayaa maadaama dawlad goboleedka gobolada dhexe iyo shacabkoodu goobta ay ka maqan yihiin cid ku matalaysana aysan jirinin cid sheegan karta oo been abuurad ku sheegan karta ma ahane cid matalaysa aysan joogin gobolada kale oo dalka iyakana sidoo kaleeto gobollo badan ay ka maqan yihiin waxaan leenahay ma ahan midkii Soomaaliya ay ku higsa lahayd barwaaqo iyo baraare waxaan u malaynayaa amaba uu ku cad yahay mid Soomaaliya inay kala harharto looga talinayo sidaas ayaan u aragnaa. Sheekh Maxamed Shaakir su'aasha labaad ee ku weydiinaa waxay tahay maadaama dadka ku dhaqan gobolada dhexe ay soo doorteen maamulka Central State maxaa hortaagan in shirka ka furmay magaalada Muqdisho iyo shirarka kale ee looga hadlayo masiirka Soomaaliya inaad ka qayb gashaan kaliya waxaa diidan hal fikrad way aaminsan yihiin koox ka mid ah dawladda federaalka ah kooxdaasoo ka weyday dantoodii dawlad goboleedka gobolada dhexe iyo dawlad goboleedyo kale ka weysay arrintaa darteed bay u diidan yihiin dawladda federaalka ah in ay mimbarka beesha caalamku ay ummadda Soomaaliyeed ugu yeerayso in ay soo fariistaan shacabka gobolada dhexe dawlad goboleedkii uu dhistay waxay ku diidan yihiin inay ka waayeen ujeedadii iyo hadafkoodii ku raacnaa inay ka waayeen bay ugu diidan yihiin ee beesha caalamku uma diidana waxayna ogol yihiin beesha caalamku shacabka rabitaankiisa ayay doonayaan waxa dawladda federaalku uga soo horjeedo in cod lagu doorto dawladda dhalan doonta 2016 oo shacabku ay doortaan waxay uga soo horjeedaa dawladda federaalka in aysan shacabka waxay ka helaysaa ayna jirinin maadaama ay ku hungoobeen 4 sano oo ay la hareen ayaa shacabka waxay ka malaysanayaan in aysan dooran saas daraadeed ayay u hor istaagan yihiin iraadada shacabka doonitaanka shacabka saasay u hor taagan yihiin waxaan ku baraarujinaynaa marka beesha caalamka in ay sidaas dareemaan ayna tixgeliyaan rabitaanka shacabka taas ayaan ku boorinayaa waxaa nagu maqaalaa in garoonka magaalada Muqdisho laga celiyay madaxda hay'adaha samafalka iyo gargaaro la doonayay in loo soo gudbiyo dhinaca iyo Dhuusamareeb iyo deegaanada aad ka talisaan arrintaasi maxaad kala socotaa waad mahadsantahay xasan cadde runtii sida aad u aragteen
ayaa shacabka soomaaliyeedna u arkay khaasatan shacabka gobollada dhexe u arkay. waxa weeye arrintaasina rabitaankii kooxdii aan kuu sheegay weeye. waxa weeye marka gobollada dhexe way hormareen, waxay ku hormareen in ilaahay uu ka badbaadiyey qaraxii, madax jabiskii, gawricii, barakicii, waxaasoo dhan baa ilaahay ka badbaadiyey. marka waxay la damacsan tahay dowladda federaalka ahi in ay intaas dhexdooda ay ka dhacdo ayay la damacsan tahay, maadaama meelihii waxaasi ka jiraan hay-ada aysan tegi karin, aysan diyaarada tegi karin, aysan maalqabeenno ama ganacsata ka howlgeli karin, yay waxay ka dhigayaan gobollada dhexe in waxaasu ka jiraan. kamana jiraan gobollada dhexe, waa meeshii dowladda federaalka u fartaba ama caalamkaba in lala dagaalami karo argagixisada iyo al-shabaab. gobollada dhexe nabadooda adduunku wuu arkay, hay-aduhu waa ka warqabaan. sida annagoo aan ula yaabannahay si ka daran hay-adihiiba ula yaaban waxaa ka jira madaarka muqdisho ee hor istaagidda dadkii hay-adaha ka shaqay jira gobollada dhexe la hor istaagay, diyaaradaha laga reebahayo. haddayba dareemeenba waxa ay ku hayaan dowladda federaalka gobollada dhexe, laakiin annagoo horaan u dareennay inna lala arko oo la wada dareemana waa rabnay, si wada jirana wax looga wada qabta hadhow. waxa ay gobollada dhexe ku colaadinayaan waa annaka waxaan rabno haddaan nahay ururka damuljadiid yeela. waa diideen gobollada dhexe, waa xor, waa hormareen. waxay ka hormareen dhibaataadkii oo dhan, soomaaliya oo dhanna horumaray u doonahayaan inay hormaraan sida ay hormareen, waana isku tashadeen, haddana waa isku sii tasha doonaan biidni illaahi alkariim. intaas ayaana rajaynayaa inaan ku koobo. aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka central state sheekh maxamed shaakir oo aan kula xiriiray khadka telefishinka Somali Cable ee magaalada Dhuusamareeb.